السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانيغا ولالكينا بشكا بشيرو إذا له لوسو دوادا يوتيوب channel كيغا هدي أتاي مركي كوريسان سو بوقتو waxaan si sharaf leh kaaga codsanayna kanaalkeena subscribe bac kusiis video like gareey aad u mahadsantahay sad ciwaan ku soo artay waxaan rabaa inaan kula wadaago 5 faa'iido uu leeyahay ACV apple cider vinegar ko weight loss haddii aad ku jirtid miisaan dhimis amaba aad u baahan tahay inaad miisaanka iska dhintid waa inaad isticmaashaa ACV apple cider vinegar aad u wanaagsan yahay haddii aad miisaan dhimis ku jirtid marka koowaad baruurta ayuu ka ridayaa miisaanka fat loss aad ugu wanaagsan yahay waa fat burner sidoo kale wuxuu ku siinayaa energy qofka markuu rabo inuu miisaan dhimis sameeyo wuxuu u baahan yahay wax miisaankaasi baruurta ka ridaya sidoo kale wuxuu u baahan yahay wax energy siinaya maadaama u baahan tahay wax energy ku siinaya rabtid inaad jimicsi ama socod hadii ay noqon lahayd aad samaysid apple cider vinegar wuxuu ku siinayaa energy shidaal ayuu ku noqonayaa wuxuuna ka baabi'inayaa baruurta marka hadii aad miisaan dhimis ku jirtid waa u baahan tahay ACV isticmaal sidoo kale waan kula wadaagi doonaa sida aad u samaysan kartid muuqaalkan qaybta dambe faa'iidada labaad uu leeyahay ACV waxay tahay fatty liver dad qaar waxaa jira beerka dufan ku leh haddii aad tahay dadka amaba lagu soo sheegay in beerkaaga uu dufan leeyahay isticmaal ACV aad ugu wanaagsan yahay waa beerka ayuu dhaqayaa weliba caloosha xitaa aad ugu wanaagsan yahay waa nadiifiye waa dabiici wax kiimika ma ahan marka isticmaal haddii aad ka tabanaysid beer xanuun amaba dhakhtar aad tagtay lagugu soo sheegay in beerkaaga uu dufan leeyahay amaba xitaa cholesterol haddii lagugu soo sheegay oo dhiiggaaga inuu dufan ku jiro aad kuugu wanaagsan yahay ACV apple cider vinegar isticmaal faa'iidada saddexaad uu leeyahay apple cider vinegar waxay tahay prevent gallstone wuxuu aad kaaga difaacayaa kiliyaha amaba kaadida dhagaxaanta gasha dabcan mararka qaar waxaa jirta ama qofka meesha uu ku nool yahay waxaa dhacda dhagaxaan in kiliyaha ay ka galaan ama kaadidiisa dadka qaar xitaa waxay soo raacaan mararka qaar markay kaadinayaan dhagaxa soo raaca so apple cider vinegar wuxuu kaa saacidayaa ama prevention uu u yahayba in kiliyahaaga amaba kaadidaada dhagaxaan ay ku aruuraan waa wax dhaca oo marka ilaah naga ilaaliyo marka adi apple cider vinegar aad ugu wanaagsan yahay waa prevention ka hortag ahaan aad u isticmaali kartaa marka haddii amaba aad ka tabanaysid xitaa haddii aad tahay qof lagu soo sheegay yaa dhagaxaan kaaga jira amaba kaadidaada infection iska baartay lagugu soo sheegay in dhagaxaan kugu jiraan insha Allah isticmaal apple cider vinegar aad ku saacidaya waa nadiifiye faa'iida afraad uu leeyahay apple cider vinegar waxay tahay helps to sleep dadka qaar waxaa jira ku dhiban hurdada sariirta haddii ay tagaan waxa laga yaabaa hurdadii intay isgedinayaan inta barkinta waqti ay ku qaadanaysaa okay so apple cider vinegar wuxuu kaa saacidayaa inaad dhaqso huridid sidoo kale adkaartaada akhriso horta markaa hurdaysid haddii aad tahay dadka hurdada ku dhib qabo markaad sariirta tagtid hoolahaaga waxaaga dhan soo dhammeey xilliga aad sariirta tegi jirtay dad qaar waxaa jira xilli hore inaad kacdaa rabtaa laakiin hurdadii aana kaa imaanin waqti dambe kaa imaanaysaa marka mararka qaar haddii ama xaalada aad ku jirtid xitaa way keeni kartaa so apple cider vinegar ayaad isticmaalaysaa hurdadu ku ilaalinaya sidoo kale adkaartaada akhrisa insha Allah markii waxaa noqonaysaa qof markuu saan dhinaciisa dhulka u dhigo hore ka seexdo inta kula wadaagin faa'iidada shanaad ee u dambeeyo sidee u aragtaa haddii aan ku tuso qaabka loo sameeyo iyo waxa uu yahayba maanta hore waxaan ku celcelinayaa ACV apple cider vinegar so dad qaar waxaa laga yaabaa inaysan aqoonin dad qaar waxaa laga yaabaa inay yaqaanaan ama magacyo kale ay yaqaanaan insha Allah waxaan ku tusi doonaa waxa uu yahay ACV marka horeysa ACV waa karaa dhaladan ayuu ku jiraa waa kan sharoobo ma ahan
sharoobo ma ahan. So waxaa la yidhahdaa Soomaali ahaan horta khal maa la dhahaa, khal tufaax. Ha, khal tufaax waaye, carabiga khal tufaax, Soomaali ma aqaano. Horta waxa uu ka kooban yahay waa tufaax. Tufaax la khamiiriyey, kiimikii waxba laguma darin, waa tufaax. Insha Allah mar kale ayaa la wadaagi doonaa sida loo sameysto. Wax maalin lagu sameynaa ma aha, bil ilaa 2 bil ayuu u baahan yahay. Gurigaaga ku sameysan kartaa. haddii aad xiiseynaysaan commentiga kusoo sheegta insha Allah qaabka loo sameystana waa idin la wadaagi doonaa aad guriga ugu sameysan kartid. laakiin wax maalintaas aad sameynaysid hore aad ka isticmaalaysa ma. laakiin waxaa heli kartaa supermarketada noocan aad ugu wanaagsan. dhaladan shuuf shirkadan waa xili hore oo shaqeyn jirtay ilaa 1912 waa shirkad aad u hor. sidoo kale wax weyn ay kaga duwan tahay kuwa kale ma jirto. kan laakiin yani waxa weeye waa dabiici raw sidiisa ah, kiimika filter waxba la soo marinin sidiisa waa. okay, qaabka loo isticmaalo waan kula wadaagi doonaa. kow horta waxaa la isticmaalaa maalinkii 3 jeer. haddii aad miisaan dhibis ku jirtid ama sidiisaba maalintaadi dhan inaad waxyaabaha isticmaalaysa aad kusoo dartid waa muhiim. apple cider vinegar so waxyaabo badan ayuu kaa saacidaya. 3daas mar isticmaalaysaa, especially subax markaa soo toostid adoo biyo iyo waxba cabin oo gaajaysan aad isticmaalaysaa markii aad ku jirtid miisaan dhimis ama aad rabtid inuu beerka caloosha ku nadiifiyo. marka qaabka u isticmaalaysid xagan biyo caadi ay ugu jiro. so biyo caadi ay ugu jiro marka xagan adiga biyaha saad u jeedaa waa kana biyaha sax. biyaha waa aragteen apple cider vinegar-ka waxa sameyni markuu saan yahay hoos u fadhiya. waxa loo baahan yahay oo rowga ah hoos ay fadhiyaan. hore kama isticmaalaysid. si fiican afkiisa iska xir waa duruxaysaa. sana u ruuxi saar tamam xubuu yeelana. si fiican u ruux marta wuu isbedel hadaa igu kala fadhiyay hadda si fiican marka u ruuxid marka caadigu noqonaa. soo waxa sameynaysaa qaadada oo caadiga aan cuntada ku cunno ayaad ku shubaysaa. qaadada aan cuntada ku cunno oo buuxdo waa kana. marka waa ku qasnay acid wax sokor amaba la jijibinayo oo process dheer galaya maaha. wuu qasan yahay asiga waa kana roogiisa waa ruuxaysaa. 2 qaado ayaa koob ku shubanaysaa biyo caadi ah. inta waxaad sameyn kartaa qudaarta aad cunaysid saladka waa ku darsan kartaa. cabitaan haddii aad shiidanaysid waa ku dhex darsan kartaa. laakiin markii aad rabtid subaxii miisaan dhimis aad ku jirtid subaxii adigoo gaajaysan ayaad isticmaalaysaa. waa gartay sooma. bismillah asad tijaabino. waa dhanaan laakiin waa macaan wax oo cabitaankiisa aad dhibsanaysa maaha. ACV haddii aad isticmaashid hal bil keliya wax walbo caloosh iyo baruurta wax dhan way kaa degaysaa. marka qaabkaas u sameysan kartaa wax adag maaha waa fudeed. gurigaaga ayaad ku sameysanaysaa. waxaa laga rabaa laakiin inaad joogtaysid. okay, sidee loo isticmaalayaa? ma hal mar kaliya isticmaalaysaa? maya, maalinkii 3 jeer ayaad isticmaalaysaa. subaxii adigoo gaajaysan ayaad isticmaalaysaa kow, duhurkii iyo habeenkii intaadan seexan. 3daas waqti ayaad isticmaalaysaa adigoo ka isticmaalayo. hal qaado ayaad ku darsanaysaa biyaha. noocaanaan ugu wanaagsan haddii aad helaysid. faa'iidada shanaad aan kusoo gabagabeynaa uu leeyahay apple cider vinegar waxay tahay great for digestion. wuxuu aad ugu wanaagsan yahay dheefshiidka. haddii aad isticmaashid that's why loo leeyahay cuntada ku darso, qudaarta ku darso, cabitaan ku darso, sidiis adoo gaajaysanba cab. aad ugu wanaagsan yahay dheefshiidkaaga. sidoo kale wuxuu aad ugu wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha. takhaatiirta waxay ku taliyaan daily-gaaga cuntooyinka aad cunaysid inaad ku soo darto.
magaalada aad joogtid ma laga helayaa waa kan sawir ka qaado waa kan noocan kaliya yani ma aha haddii aad helaysid noocyo kala jir kambaniyo badan soo saaro laakiin mid kaana ugu caansan oo Mareykan ah oo dadka aad loo isticmaalo kambanigana weyn ka wada jeeda yani ha isdhiin noocaana raadina haddii aad helaysid noocan isticmaal apple cider vinegar waa inuu ahaado oo weli barow aan la miirin ku waxa jiro la filtareeyay oo biyo cad u eg kamarata row waaye marka kana loo baahan insha Allah haddii aad meesha joogto laga helayo soo iibso isticmaal marka had ku xaysiinaya ma ahan ama aan ku sharxayo company wax ugu soo siiyaan wax kaga cunayo oo dadka gaarsiinaya ma aha xaysiiniga ma aha laakiin maadaama uu wanaagsan yahay anigana aan isticmaalay dabcan wixii aan naftaada la jeceshahay walaalahaagana waa inaad la jeclaataa saad u aragtay aad la soo wadaagtaa marka aad u wanaagsan yahay waad sii baari kartaa adigana isticmaal ACV apple cider vinegar so marka waxaan jeclaystay inaan kula wadaago 5 faa'iido uu leeyahay apple cider vinegar faa'iidooyinkiisu way fara badan yihiin adiga daawana waxa laga yaabaa inaad taqaanid faa'iidooyin aad u isticmaashay aad ku najaxday marka si aan kaaga faa'iideysano qaybta comment-ka ku soo qor waa inoo muhiim sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalka ilooyin walaalaha kale ee qaarka jecel inaad la sii sheergareyso si aad adigana ajar ugu heshid haddii aad tahayna markii kugu horeysan soo booqato kusoo biir tiimkan quruxda badan jecel mar walba inay waxyaabo wanaagsan bulshada soo gudbiyaan inta kulmi doona muuqaalka waxa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bisan love nabada ka shaqeyna salaama